maxkamadda gobolka banaadir ay ku dhawaaqdo go'aankeeda ku aadan kiiska Sayid Cali Macalin Daa'uud markaasi la doonayo in marka halkan ay ka soo saarto maxkamaddu xukun waxaa loo badanayaa maanta in maxkamaddu ay soo saarto xukunka isla markaana goordhow ay ku dhawaaqdo xukun maxkamadda gobolka banaadir ay ku ridayso eedeysanaha Sayid Cali Macalin Daa'uud waxaan gudaha u geli doonaa goordhow hoolka iyo halka ay dabcan la filayo in goordhow hawshu ay ka bilaabato laakiin halkan waa bannaankii hoolka waxaana dadku ay dabcan hadda bilaabayaan inay gudaha soo galaan iyadoo weli dad badan ay markaa goobta doonayaan in ay gudaha u soo galaan goordhow waxaan tagi doonaa gudaha halkaas oo aan kula kulmi doono qaar ka mid ah dadka gudaha ku jira ee doonayaan in dacwadda halkan ay ka dhageystaan la socod wanaagsan telefishinka Universal waxa uu idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha halkan markaa ka soconaya مدرسنا أيوب دوميها بمحكمة قبل كبنادر يستاجي دونا يشتغل من النتيجة الرسمية عشان واقع دونا وأن محكمة قبل كبنادر يجاري دون صوت كيس كمثال السنة هي علي محمد داوود وقوة إن الجبين كمر كانت عند الرأي الجبين عايز يسلون عبد العزيز والله هون حريستين أو إلا هذا بال يا وحب بال يا بربا يعني كبر تسلاجد إيه الجبين إن الأسدوني لابد طريقة غير محمد قبل كبنادر الرئيس ويرتوح على سوق التجديد هي علي معلم داود رسمي أو شيء سن قبنا حاس كيسة سيدو كلا حديث حير لانون تايا قوبتن هول كم قصة بندقة
اسمقلنا dadweynaha la soo deyn rabaa hal kala fiirsan nin walba bashashikiisa ha qabsado mar haddii dadweynaha la soo daayo gudoomiyaha ku xigo marka nin walba bashashikiisa ha qabsado kaamirada nin walba dhaxdan ha ka baxa bashashikiisa ha qabsado wariyow aan ismaqalno wariyay aan ismaqalno aan kala leexananin واحرنوك اسمقلنا ورياشة لايف كالا قبحو نول بوشيشن كيس ها قبصدو ددوينيها سو حرونايو نول بوشيشن كيس ها قبصدو حقو مكيونيها لو صوتو انت كنا كيس كيرمانك لو صحا نول بوشيشن كيس ها قبصدو لا تحل تحول كتلقا وهكاك وهاجاج طبعا صادر كيسان ددوينيه ayaa hadda hoolka soo galaya kuwaas oo marka iyagu doonaya inay qayb ka noqdaan dhageysiga kiiska dacwadda ah ee ka dhanka ah eedeysanaysa cali macalin daawud oo lagu eedeeyay in xaaskiisa uu gubay وهاجاج طبعا صار كيسان هذا ددوينيه ayaa soo galaya hoolka gudaha hoolka ayayna dabcan soo galayaan dadku waxaana marka ay doonayaan in goobjoog ay ka aadaan kiiska uu eedeysanaha ka yahay Said Ali Macalin Daawud وهاجاج صادر كيسان ددوينيه ayaa hadda dabcan soo galay oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dhageysiga go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda gobolka Banaadir ay maanta la filayo inay ka soo saarto kiiska Said Ali Macalin Daawud kiiskan ayaa horay waxa uu soo maray laba dhageysi oo ku aadan cadeynta iyo sidoo kale dhageysiga waxyaabaha marka marqaatiyada ah ee laga doonayay kiiskan iyadoo maxkamadda la hor keenay ilaa iyo dhowr marqaati sidoo kale xeer ilaalinta ayaa dabcan waxa ay soo gudbiyeen cadeymo ay markaa ku sheegeen in uu ahaa waxyaabaha markaa muujinaya in eedeysanaysa Said Ali Macalin Daawud kiiskan وهي هولك محكمة أي هذا طبعا soo galayaan dadku welina ma bilaaban oo maxkamadda gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda iyo dabcan garsoorayaasha kale ayaa la filayaa inay goor halkan ay iyaguna yimaadaan maanta halkan waxaa la filayaa in go'aanka maxkamadda muddada la sugayay oo gudoomiyaha maxkamadda uu ku dhawaaqo waxaana markaa la filayaa in sida ay wada sheegeen ehelada labada dhinac ay doonayaan in ay muujiyaan markaasi ama ehelada labada dhinac markii laga soo tago dabcan dadweyne kale oo waxaa jooga daneynaya kiiskan isla markaana doonaya in si un ay macluumaad iyo xog uga ogaadaan kiiskan waxaana markaasi ay soo galayaan dabcan hadda saad arkaysaan hoolka ehelada labada dhinac
وإيديسنا سيد علي معلن داود يسدو كلا الله ونحرسه مرحوم لول عبد العزيز ayaa sidoo kale hoolka jooga iyadoo la filayay in goordhowna ehelka labada dhinac gaar ahaan waalidiinta eedeysanaha iyo sidoo kale marxumadda Allah naxariistay ay hoolka dacwadaha ee maxkamadda gobolka Banaadir oo la filayay in go'aanka maxkamadda lagu dhawaaqo goordhow ay soo gaaraan toos ayaad ula socon doontaan haddii eebba uu qadaro kiiskan iyo halka uu ku dhamaado ee maxkamadda gobolka Banaadir ay go'aanka uga soo saari doonto hadduu rabbi qadaro طبعا صادر كيسانا هولك هذا وأسوب حسمي أو ضدكي وجبنا أيا مانتا كغيب جلي كيس كان يدقيس كيسة يضنا مركا ضد كلاولي بنان كأي جوجان إسلام مركانا جودها أي كسو وجهين طبعا صادر كيسان ولي هولك ويكون السعودان ضدكو dadka halkan imaanayana waxay isugu jiraan saddex nooc oo kala ah ehelada marxuumadda iyo sidoo kale ehelka eedeysane Said Cali iyo dadweyne iyagu si iskooda halkan ugu yimid kiiskan si ay goobjoog uga noqdaan kiiskan waxaana ku jira qaar ka mid ah ardayda barata markaasi قانون كانوا يعيش كل دون كواس أو دونية إنها يجوبجوك هذان حكم كان يسدا ودعيو طبعا ولي لما سألين كرو نوع حكم محكمة دا يكون واقع دونتو بس دقيسي لبادي توكو هراء أيا جارهان دقيسي وجودن بيه كان ما أنت كوري أيا أما فدي عن هذا كان كوري أيا محكمة دو حيكون شكتي إن مركا أي صار دونتو جوان كؤدن كيسكن وحنا هراء الله سمي لباد دقيسي أما لبفدي أو لوجود دقيسي سنها وسؤال الويدي سدوا كله قرينا الدفاعي سنها أيا سؤال ويدي سنها sidoo kale marqaatiyaal goobta la keenay maxkamadda waxa sidoo kale la hor keenay ilaa 5 marqaati oo markaa iyagu sheegay inay ka marag furayaan in kiiskan ay goobjoog ka ahaan doonaan toos ayaad universal ugala socon doontaan haddii eebba uu qadaro inta maxkamadan ay socoto iyo ku dhawaaqida go'aanka goordhow ayaana la filayaa in maxkamaddu ay bilaabato saad arkaysaan hadda dadweynaha ayaa dabcan hoolka maxkamadda soo xaadiraya si markaa ay qayb uga noqdaan kiiskan waxaana markaa la filayaa in goordhowna gudoomiyaha maxkamadda uu soo gala dabcan oo kiiskan uu toos u bilowdo inagoo hadba idiin soo gudbin doona halka ay xaaladdu marayso iyo sida kiiska maxkamaddu markaa uu noqon doono haddii eebba uu qadaro waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah dadka halkan jooga qaarkood ayaa dabcan وهجاج طبعا سعر كيسان ويه طبعا سعر كيسان توس أياد يونيفرسال إنه قال صعطان محكمة الجبل كبنادر أيانا الجمعة جوردو أي محكمة طبعا بلابن يساو حنا الرجينية إن سانهور إذا كوش أجنبا هذا أيا طبعا يدك دنيني كيس كان إن قيبك هذا أيا حد سوق ليا وحنا مركا عن إذا لسه عشرين دونا حد بهالك أي كيس كان يجيسو ومريو وياي طبعا ددويني هي هذا السوق جريه صادر كيسان ولي ددويني هي سوق جريه كيسكن كيسن فاتكا يدنا لا فريان جوردو قدوميه محكمه جبل كبنادر وصوغل kiiskan maanta la rajaynayo in go'aanka kama dambaysta ah laga gaaro waxa markaa uu soo maray ilaa iyo dhowr fadhi kadib markii
maxkamaddu ay dhegaysatay dabcan eedaysanayaasha. وهي داوديال ولي تلفزيون يونيفرسال ayaa toos nogala soconaysaan وهي طبعا ولي محكمة أيام جوجنا صادر كيسان سودو يونيفرسال سودو يقولون بالمانتي جوان أيا طبعا لفيل إننا كم ردوا جزء واحد. ما سنتها يلو طبعا ما أنت جوانك الصومالي ودنا ولور تاجيسو أنا قلنا وحكنا قدرنا شاهد مقاطع لكن قدرنا طبعا وحنا قدرنا ولي ضدكم ما حكم كران صيلا لكن لبدينا يعني متقف كستو في لا إن هذا شو حكم كنا سيد الصومالي ودنا وصفيلاسو وعلنا أوجي هاي قرصور كنا سوق اللي ياكل جاي إنه أوفلا معناه وماشي عشان قيمة عدالة صومالي كحسش. dad baasan tahay iga waran bal rajada marka laga soo tago dadka halkan nolol fadhiya rajada dadka Soomaaliyeed ee banaanka ka daawanaya والله dadka rajada Soomaalida banaanka ka daawanaysa dabcan waxa furo oo noqon doona xukunka maanta soo baxay sababtoo tahay xukunkan dal iyo dibadda laga sugaa saameyntiisa iyo mushkiladiisana waa la wada gahay marka wuxuu saameyn fiican ku yeelan doona ama culays badan ku yeelan doona xukunka qaabka u soo baxo Soomaalidana dabcan waxa la yiraahdaa maxkamadaha cadaaladda ma jiraan in cadaalad ka jirto inay ka jiri maanta soo bixi doonto laakiin midaan sii raacnay waxay tahay xukunku haddii si la rabo Soomaalida fulaysa u dhaco oo aan ninkan la xukumo in la fuliyaa meesha ka sii dhiman fulintan in si sax ah u dhacda rajana dularaad way aad baad maasan tahay waa ku mahadcelinaya dabcan saa arkaysaan hadda hoolka maxkamadda ayaa goordhow dadku ay soo wada galeen waxaana la filayaa in markaa goordhow maxkamaddu ay bilaabato gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaana la filayaa in goordhow halkan uu soo galo dabcan maxkamadda ayaana la filayaa in goordhow dabcan saa arkaysaan dad fara badan ayaa hadda hoolka maxkamadda soo galay iyadoo markaa dadku ay aad u daneynayaan ka qaybgalka kiiskan iyo dhageysigiisa dadyo fara badan ayaa dabcan raba in ay halkan ay ka qayb galaan dhageysiga maxkamadda maanta ama go'aanka la filaya in maxkamaddu ay ku dhawaaqdo وياي maanta waxaa dabcan la filayaa in kiiskan maxkamaddu ay soo gunaanado go'aanna ay markaasi maxkamaddu markaa go'aanna ay ka gaarto kiiskan wagaag dabcan dadka ayaa hadba qofku wuxuu doonayaa in halkan uu yimaado dadkii ugu badnaa ayaa dabcan saa arkaysaan halkan kiiskan uga soo qayb galay waxaana markaa aan idin la wadaagi doonaa goordhow xukunka maxkamadda oo gudoomiyaha maxkamadda iyo dabcan xubnaha kale ee xafiiskiisa ka socday goordhow ay ka yimaadaan
وجاج محكمة الجبل كبنادر أي طبعا داوديال عند كلا سؤال لنا جرهان هولك دعوتها محكمة الجبل كبنادر والله في إن جردو محكمة دو يكون بقى ضمانته حكمك سنة سيد علي معلن داود أو لجو إذا إن مركا طبعا وحاسك يسبقي طبعا ضد فربنا يكسو غيب جلي أبسود ويونيفرسال كسو دو ما أنت دعوة أي كسو غيب جشي بل كورن محل قفل يالك والله دعوتنا waxaa laga filayaa go'aanka in maxkamadda ay soo rido ninkaasna macnaha ama xoriyadiisa helo ama xoriyad macnaha oo macnaha la xukumo intaan ka sugeynaa macnaha go'aanka ugu dambeeya maxkamadana la waayay xilli horaad saaka timid adiga iyo asxaabtaada iyo dad kale halkan jooga bal ka waran kiiskan iyo rajada laga qabo kiiskan kiis rajo fiican oo laga qabo go'aan fiican oo ka soo baxay aan ka sugeynaa waa ka صاحب سودو يونيفرسال سودو مع كاميرا دويرة جزء بل كورن مانتي هل كانت تمد كيس ما شاء الله وكيس آدم بدن لو وحن هذا معناه قوان أن كسوينا محكمة وحي كسوب حقنا عسنا إن شاء الله حقي حقب عدالة إن شاء الله عدالتنا كسوينا إن شاء الله سودو يونيفرسال سودو ويا طبعا dadkii ugu badnaa ayaa hadda howlka dacwadda maxkamaddu ay ka socoto ka soo qayb galay sadarkaysan guurdhow waxa la filayaa in gudoomiyaha maxkamaddu uu soo galo isla markaana lagu dhawaaqo xukunka kama dambaysta ah maanta halkan la filayo in maxkamaddu ay go'aan kaga gaarto kiiskan saan hore idinkugu sheegay waxa uu soo maray laba dhageysi oo markaa kala ah dhageysiga koowaad oo markaa la akhriyay eedda loo heesto eedeysanaysa cali macalin daawud iyadoo sidoo kale fadhiga labaad ee maxkamaddana lagu dhageystay marqaatiyaal maxkamadda la hor keenay iyo cadeymo xafiiska xiriirliyaha guud ee qaranku uu soo bandhigay garaan fadhigaas maxkamadda uu ku soo bandhigay isla markaana uu ku sheegay in ay muujinayaan eedda uu ku eedeysan yahay sayid cali macalin daawud oo ah in xaaskiisa uu ku gubay magaalada muqdisho iyadoo uur leh waxaa la filayaa goordhow saan hore idinku sheegaba in xukunka maxkamadda maanta uu noqdo kii ugu dambeeyey fadhigii ka horreeyey ayaa guddoomiyaha maxkamadda waxa uu ku sheegay inuu noqon doono mid go'aan lagu gaarayo dadka halkan joogana waxay isugu jiraan ehelka marxuumadda allah u naxariistay luul cabdilcasiis iyo sidoo kale eedeysanaysa cali macalin daawud waxaana markaa labada dhinacba ay maanta halkan ay diyaar ugu yihiin in ay dhageystaan xukunka maxkamadda iyo go'aanka kama dambaysta ah ee kiiskan maxkamaddu ay ka soo saarayso iyadoo markaa goordhowna saan hore idinku sheegay guddoomiyaha maxkamadda uu soo geli doono xukunka maxkamaddana halkan looga dhawaaqi doono waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid a dadka halkan uga soo qayb galay dhegeysiga kiiskan inagoo weydiin doona bal aragtida ku aadan kiiskan iyo sida ay markaa rajaynayaan in uu ku soo gabagabo idinkoo sidoo kale toos ula socon doona telefishinka universalna kala socon doona maxkamadda maanta iyo sidoo kale tabinteena tooska ah ee ku aadan kiiskan wagaag sadarkaysan dad badan ayaa dabcan jooga kiiskan goobjoogna raba inay ka noqdaan waxaana markaasi dadku ay aad u danaynayaan in kiiskan dhegeysigiisa ay qayb ka noqdaan isla markaana maxkamaddu maanta ay gaarto go'aan kama dambaysa oo ah go'aanka ugu dambeeyey ee maxkamaddu ay ka gaarayso arrintan وهجاج runtii maanta maalmihii hore howlka maxkamaddu waa uu ka duwan yahay qof walbana waxa uu markaa saadaalinaya rajada ah qaabka kiiskan maxkamaddu ay go'aan uga gaarto iyo sidoo kale waxyaabaha la filayo ehelada labada dhinac qaarkood ayaan weli imaanin sida aabbaha luul cabdilcasiis oo la filayo in goordhow uu soo galo howlka sidoo kale eedeysanaha ayaan weli howlka maxkamadda isagu la keeninin balse waxaa la rajaynayaa in goordhow dabcan fadhiga maxkamadda uu bilowdo isla markaana go'aan kama dambaysa maanta maxkamadda gobolka banaadir ay gaarto
weli saa arkaysaan dadkii ayaa dabcan marba marka ka dambaysa hoolka soo gelaya waxaana markaa dadku ay aad u danaynayaan inay qayb ka noqdaan kiiskan iyo dabcan dhegaysigiisa wagaag dabcan saa arkaysaan maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo saaraysa kiiskan go'aankiisii ugu dambeeyey dadka ayaana runtii siyaabo kala duwan uga hadlaya kiiskan oo eedeysanaha ka yahay Said Cali Macalin Daawud iyo xukunka la rajaynayo in maxkamadda gobolka banaadir ay markaa soo saarto eedeysanaha iyo sidoo kale waa eedeysanaha ehelka eedeysanaha iyo eedeysanaha ama iraahda ehelka marxumadda halkan ayay ku wada dhan yihiin waxaana markaa ay aad u rajaynayaan in kiiskan uu ku dhammaado si labada dhinac qof walba oo ka mid ah uu ku qanacsan yahay dabcan saa arkaysaan maanta waa maalin kale oo markaa maxkamadda gobolka banaadir ay gaarayso mid ka mid ah go'aanadeedii ku aadanaa kiiskan hadaleynta badan dhaliyey Said Cali Macalin Daawud uu dabcan eedeysanaha ka yahay hadda waxaa soo galay qareenkii dabcan u doodayey eedeysana Said Cali Macalin Daawud abukaati xalane oo hadda dabcan saa arkaysaan hoolka maxkamadda soo galay abukaata xalane ayaa dabcan hadda soo galay hoolka maxkamadda idinkoo dabcan saa arkaysaana dabcan saa arkaysaan abukaatihii ayaa hadda yimid oo inta kalena waxaa la rajaynayaa dabcan sida eedeysanaha iyo xubnaha kale ee xafiiska xeeleeyaha inay goobjoog ka ahdaan kiiskan isla markaana ay halkan yimaadaan waayahay daawadayaal telefishinka universal ayaa toos noogala socotaan dabcan saad arkaysaan waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah ee ku aadan go'aanka la filayo in maxkamadda gobolka banaadir ay ka gaarto kiiska eedeysanaya Said Cali Macalin Daawud waayahay dadkii dadweynihii kala duwanaa ee doonayay inay kiiskan dhegaysigiisa ay qayb ka noqdaan ayaa soo gelaya wagaag dabcan hoolka ayaa hadda buux dhaafaya marba marka ka dambaysana dadweyne fara badan ayaa soo qayb gelaya abukaata xalane dabcan oo ah abukaataha u doodaya eedeysanaha ayaa ka mid ah dadka halkan yimid oo ka qayb gelaya dadweynihii ugu badnaa doonaya kiiskan ay goobjoog ka ahaadaan daawadaan lana socdaan sida xaaladdu ay ku dambayso ayaa dabcan hadda hoolka soo gelaya sa arkaysaan dabcan dadweynaha aad ay u fara badan yihiin dadku aad ay u fara badan yihiin doonaya in kiiskan ay ka qayb qaataan isla markaana maxkamadda ay go'aankeeda kama dambaysta ah ay halkan ka gaaraan سلو صاحب يونيفرسيتي سلو إنك كملت جيسو سلو يورن مانتي كيس كان جوجو كتاي سيدا ورقة بل كيس كان يقابك وأنا هرتا إن شاء الله وحرجينا كيس كان إنه سي عدالة كسر ماذا مانتا تاسا يعني إنه بدينا محكمة كوغان سي عسالة كسر ماذا إن شاء الله وحرجينا إنه عدالة كسر ماذا
ka warran marka rajada laga qabo kiiskan in si cadaalad ah oo labada dhinac ay ku qanacsan yihiin maxkamaddu ay ku soo saarto rajo fiican ayaan leenahay kulley waxaan rajaynaynaa in xaqii gabadha ay lahayd oo kulley lagu eedeynaya in lagu oofiyo insha allah eedeysanaha waya marka ugu dambayn rajada isleeda dadka Soomaaliyeed arrintan way ka qabayaan rajo fiican ayaa laga qabaa maxkamadda inay maanta soo gabagabeyso waya aad ma santa saaxiib ku mahadcelinayaa ay soo dhaw saaxiib adna Universal ku soo dhaw dhinaca kaamirada u jeeso waan ku dhawahay TV-ga Universal waana kaaga mahadcelinayaa wareysigaaga quruxda badan ee la yeelad fikirkayga aan halkan ujeedkan halkan u imaaday waxaa waaye inaan goobjoog ka ahaado cadaalad u helka Luul Cabdicasiis oo aan ehel ahaan qaraabo dhow aan nahay marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka rajaynayaa insha Allah xukun cadaalad ah inay ku riddo kiiska rajada marka intee la eg tahay si cadaalad inuu ku soo dhamaado kiiskan inay kiiskan cadaalad ay Luul Cabdicasiis helayso rajadeena 100% waa okaas waxaan hay'adaha garsoorka iyo inta ku shuqulaba waxaan u dirayaa inay cadaaladu shaqeyso cadaaladuna sarreyso ayaan leeyahay ku mahadcelinayaa aad soo dhaw adigana telefishinka Universal ku soo dhaw maanta waa ka soo qayb gashay kiiskan dhageysigiisa iyo go'aanka gaaritiisa waa mahadsan tahay waxaan u arkaa arrin aad u wanaagsan maanta maxkamadda gobolka Banaadir waxaa looga fadhiyaa go'aan aad u qaraar oo aad taariikhi ugu ah ummadda Soomaaliyeed waxaana laga sugayaa go'aan taariikhi ah waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamadda ay soo saartay gobolka Banaadir waya marka kiiskan iyo bal intuu soo jiitamayay iyo waxyaabaha laga filayo maanta bal ka waran kiiskani muddo ayuu soo jiitamayay waxaana ku rajo weynahay go'aankan sida shariicada islaamka ku xusan in laga soo saaro ayaanu ku rajo weynahay maxaa fariina oo marka hay'adaha garsoorka ee dalka u diraysa fariinta aan u diray wuxuu yahay maxkamadda gobolka Banaadir waxaa maanta hor yaala go'aan taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayso indhahooduna ay wada daawanayaan marka waxaan leeyahay go'aanka siduu yahay loo fuliyo waana wax cad oo aan u baahnayn maxaa la yahay laba-labayn saas ayaan leeyahay marka go'aanka soo bixi doona wuxuu isleeyahay wuu ka bedeli karaa hay'adaha garsoorka iyo waxaan isleeyahay hay'adaha garsoorka waa go'aanka noqon kara inuu garsoor ka jiro waddanka iyo inuusan ka jirin hadduu garsoorku sidii uu yahay loo fuliyo oo go'aanka la soo saaray ummaddu ay wada sugayso ummaddu hal go'aan badankeed wada sugaysaa go'aanka haddii la soo saaro waxaan isleeyahay garsoorka waa lagu qancayaa dad badan ayaana maaragtay ku tusaale qaadanaya waxyaabo badan baa iska beddelaya waddanka waya kiisas la mid kan ayaa dhowr mar dhacay marka xukunka maanta maxkamaddu ay gaarayso maxaa isleedahay wuu ka bedeli karaa ama wuu ku kordhin karaa kiisaskaas saan hore u sheegayba go'aankani kiiskani kiis ka duwan waaye kiisaska soo dhici jiray oo dhan waa kiis dab aha iyo cadaab qof bini aadan ah in la cadaabo waxaan sugaynaa go'aanku siduu yahay in loo fuliyo waxaanu ka beddelayaa baan isleeyahay maxaa la yidhaahdaa wax badan ayuu ka beddelayaa garsoorka saan hore u sheegayba oo in garsoorka lagu qanco ayay noqonaysaa haddii siduu yahay loo fuliyo aad baad umahadsan tahay saaxiib oo ku mahadcelinayaa hagaag dabcan saa arkaysaan hoolka maxkamadda dad aad u fara badan oo doonaya in ay kiiskan halka uu ku dambeeyo uu ogaado ayaa dabcan ka qayb gelaya wayay hoolka maxkamadda ayaan dabcan weli ku guda jirnaa dadyo fara badan ayaa dabcan halkan jooga oo markaa doonaya in kiiskan ay goobjoog ka aadaan daqiiqadii ugu dambeeyey ee go'aanka maxkamadda ayaanu ku guda jirnaa dabcan dadka aan wareysanayna dabcan waxaad dareemaysaan inay ka hadlayaan kiiskan iyo qaabka markaa ay rajada uga qabaan inay iyadoo ehelada marxuumiinta iyo sidoo kale soo qayb galaan waa yahay soo dhawow telefishinka Universal ku soo dhawow iga waran bal maanta xukunka maxkamadda ayaa dabcan la jooga dhinaca kaamirada u jeeso soo gudub wagaag soo gudub waa dhinaca kaamirada u jeeso soo dhawow walaal Universal ku soo dhawow
maantay xukunkii maxkamadda ayaa dabcan loo joogaa sida u aragtaa horta universal waa idin salaamaya waana ku dhowahay waa ku faraxsanahay maanta maalinkii go'aan ku dhawaaqista inaan u joogno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu khayr nooga soo saaro iyo sida niyaddeena ay jeceshahay aan rajaynaynaa insha Allah xilli hore oo saaka ayaad halkan timaadeen ka waran rajada aad qabtaan maanta maxay tahay wallaahi rajada anaga aan qabno waxa waaye oo kiiskeena aad looga soo shaqeeyay oo maanta sida anaga aan rajaynayno xukunkeena inuu noogu dhawaaqo saasaan ku niyadsannahay saas waa anaga niyaddeena farxadeeda waxay ku jirto saasaan rajaynaynaa dhegaysiyaa la soo galay maalmihii kiiskan la dhegaysanayay iyo maanta bal ka waran maxaa farqiga jira wallaahi kiiska wuu iska caddaa ninkaa maalinkii kow hadalkuu ku hadlay maalin labaadka muuse ku hadlin waa wada maqlayseen waana u jeedeen xitaa isagoo saxiix laga haaya awkaataa intuu dhaha saxiixa laga haayaa qareenka noo dooday wuxuu dhahay aniga ma ahan ma fahante marka waa iska cadyahay ninka inuu dembiga galo oo kiiska galay asaga ma gubin iyo waxaas iska af Soomaali waaye marka anaga waxaan rajaynaynaa awkaataheena waxaan ku raa inaa oo adiga inta maxkamadeena sharafta leh anaga aan ku faraxsanahay sida dacwadeena ay u wado kiiskeena sida anaga aan jecelnahay inuu Ilaahay noogu soo dhameeyo ugu dambeyn marka maxaa fariina oo ku aadan arintan oo aad diraysaa oo hay'adaha garsoorka iyo dadka wallaahi garsoorka waxaan u diraynaa kiiskan waa cad yahay inaa sida cadaaladda ay qabto inaa kiiskeena aad cadaaladda noogu soo saartaan waayo kiiskan waa iska cadyahay ninkan gabadha inuu dilo waa loo jeedaa hadduu ayada uusan u dan lahayn alaabtuu bannaanka soo dhigi kare gurigoo gubi kare marka hooyo oo ayada ilmaheeda guriga inta ku jiraan in ilmaha badbaadsata la rabe guri iskuma tuuri lahayn oo dabka socdo marka kiiskan waa iska cadyahay hay-adaha garsoorkan waxaan ka codsanaynaa inay oo si cadaalad ay xaqeena noogu soo dhiciyaan kiiskan marka laga soo tago si guud muxuu ka bedeli karaa marka xukunka maanta halkan ka dhici kara bulshada dhibaatooyinka ka dhexdhacay ee falalkan ay la mid yihiin wallaahi intaas dhan anagoona ku qanacsaneen inuu waxaas magaaladeena ay ka dhacdo waddankeena wili Soomaaliya Muqdisho inay ka dhacdo ayadoo la isdhahayo magaalada Muqdisho dib kabashay u sameysay amnigeeda kulli wuu soo hagaaga asagoo la dhahayo haddana haddii kiiskan hadda oo sida cadaaladda haddii la marsiiyo wixii kala soo socda xataa inuu ku xirmayo because kiiskan intuu dhacay inta fal dambiyeed oo midba midka kale ka xun yahay oo dhacay waa loo jeedaa marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha garsoorka isaan cuqubo looga qaadin dhul ina cadaalad ay hesho dabcan waxay ahayd mid ka mida ehelada allahu naxariista luul cabdilcasiis oo saad arkaysaan inooga warramaysa bal kiiskan iyo qaabka markaa go'aanka ay u arkayaan waayahay dabcan dadku saad arkaysaan qof walba waxaa halkan u yimid in kiiskan goobjoog ka ahaado qaabka maxkamadda iyo hawsheedu ay ku dhammaato uu maanta goobjoog ka noqdo iyadoo dadkii ugu badnaana halkan ehelada labada dhinac ayaa goobjoog ah waxaana markaa ay dhegta u taagayaan xukunkan iyo sida markaa uu ku dhammaado oo markaa ah gabagabada ugu dambaysa xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta laga filayaa mid ka mid a go'aanadii ugu cuslaa inay halkan ku gaarto marka loo eego qaabka kiiskan bulshada dhexdeeda uu saamaynta ugu yeeshay qaabka hadalayntiisa iyo sida markaa dadku ay u danaynayaan in kiiskan uu ku dhammaado hannaan cadaalad ah hanaan cadaalada inuu ku dhammaado ayuu qof walba oo ka mida dadka halkan jooga uu dabcan doonayaa rajada dadku ay qabaan ayaa dabcan ah in kiiskan ku dhammaado si fudud markaa oo cadaalada telefishinka universal ayaad daawadayaal toos nogala soconaysaan waxaana markaa dad fara badan oo ayaa dabcan jooga ninkan dhalinyarada ayaa ka mid ah dadka ka soo qayb galay saaxiib soo dhawo magacaaga sheeg waa maasan tahay magacayga waa Dirxiin Xasan Dirxiin waxaa ka mid ahay ardayda barata sharciga tababarna u imaada meeshaan
waxaanu maanta u joognaa kiiska Sayid Cali inaan dhageysano iyo gabadhii Allah yarxamu ilaaha u naxariisto marka saa hore idinku sheegna dabcan ardayda sharciga barata iyo qaanuunka ayaa qayb ka ah in ay si caadi maxkamadaha xilliyada dacwadu ay jiraan ay dhageystaan kiiskan iyo kiisas kale oo dhowr ah ayaa dabcan ay ka soo qayb galeen soo dhawow saaxiib ka waran bal ahmiyadda kiiskan iyo dhageysigiisa uu idin lahaa idinka ka arday ahaan wallaahi horta ahmiyadda kiiska horta aad buu u weyn yahay waayo sababta kiisaskan iyo kiisas ka daranba way dhacaan laakiin kiiskan wuxuu fajac ku noqday ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba joogaan iyo dhinac walba joogaan marka mushkiladda ugu weyn waxay tahay waxaysan ummadda arkin markay ummadda ku cusboonaato aad buu kiisku weynaanayaa marka hadda waxa u fadhinaa waxa waa galmaqalka u dambeeya dacwadda oo gudoomiyaha ku soo xiri doona maanta markuu imaado waqtiga oo balanta la gaaro insha Allah marka dacwaduna waxay ahaanaysaa isheeg gudoomiyaha wuxuu ku qanaco cadeymihii iyo wixii la soo bandhigay marka kiiska jawaabta ugu dambeeyay waxa bixin doona gudoomiyaha ummadana dhammaan waxay sugayaan jawaabta soo baxday iyo bulshadu waxay indhaha ku hayaan kiiska waxay sababta u tahay Sayid Cali ma garsooro wuxuu ku xukumay cadeymihiis noqon doonta insha Allah ويا مركي ويا سنة سيد علي معلم داود أيا طبعا هذا صوغلي صادر كيسان أو محكمة الكيني ورئيسي ينسود إنه كورنا مركز صاحب أرضيدا برتا شرعية كيس كان محيك فهمين حاسة وقرني والله أرضيدا مر والبهرة توبرة كجران وحين كفائدة النظام كجرسورك والدعوة وهاجا يقابكم وكل قضومنا أما قابكو دعوة وشرحها أما قابكو وهاجا يكرسورك وحيابي وحبنا أنت سكفائدة مرول ويا وكسر الله بيننا سحبات بدو ما سنتهاي مركز صادر كيسان مقالكو وكاميرا هيسا سنة سيد علي معلم داود أو شخصية كيس كان سنة كأ iyadoo maanta markaa hadda hoolka maxkamadda dacwada ama go'aanka lagu gaarayo uu soo galay Sayid Cali Macalin Daawud oo dabcan markiisii saddexaad ka soo muuqanaya maxkamadda gobolka Banaadir dabcan Sayid Cali ayay kaamiradu qabanaysaa oo hadda hoolka dacwada soo galay maantana go'aan kama dambaysa ayaa laga gaari doonaa hadduu eebba qadaro kiiskiisa waxaana markaa dadweynaha ay ka soo qayb galayaan kiiskan ay xaadir u yihiin in ay goobjoog ka aadaan sida kiiskan uu noqdo Sayid Cali Macalin Daawud ayaa dabcan hadda hoolka galay saad arkaysaan oo hanaankiisa ama iraahdee goobtiisa la keenay وياي سنة سيد علي معلم داود أي كاميرا ده هيسا هذا صار كيسان دين عن كلام مركز إكتو ددوينة فربضن أو كيس كان سيون قدنينا يكتب قل كيسا يا جوجا أو ديار واهني جوجك هذا نسيدا كيس كان وكسر دماغه يهلك ما قاب محكمة دو أي قانك وجاريس سيدو كله أرضيدا جامعة دين عشر عقبرته أي جوجك مركز لقى صوت هذا labada dhinac iyagu halkan xaadirka ku ah وياي hoolka maxkamadda ayaa dabcan hadda soo buux dhaafaya dadkii ugu badnaa dacwad ka soo qayb gala ayaana dabcan lagu tilmaami karaa dadka maanta halkan jooga marka la eego qaabka hoolka maxkamadda ay u buuxo وياي طبعا كيسك محكمة ayaa go'aanka maxkamadda ayaa goordhow dabcan la sugaya waxaana markaa la filayaa in xukunka maxkamadda uu dhowaan soo baxo Sayid Cali Macalin Daawud oo ah eedeysanaha kiiskan
ayaa dabcan isagu waxaa hadda uu soo galay hoolka waxaana markaa la filayaa goordhow in gudoomiyaha maxkamadda iyo xubnaha kale ee garsoorayaasha la socda iyo xafiiska xeelaalinta ay yimaadaan ehelada ayaana dabcan iyagu diyaar u ah in kiiskan ay ka soo qayb galaan ehelada labada dhinac ayaa dadka ugu badan halkan jooga ay yihiin sidoo kalena dad kale ayaa qayb ka ah oo si u daneynaya in kiiskan ay ka qayb qaataan dadka halkan maanta uga soo qayb galaya dhegaysiga kiiska eedeysanaya Said Cali Macalin Daa'uud وهاجاج وياي طبعا dadkii ugu badnaa ayaa hadda raba in ka soo qayb galaan dhageysiga kiiska dacwadda maxkamadda gobolka Banaadir ayaan daawadayaal toos in kala soo hadlaynaa inagoo markaa ku jirna tibinta tooska ah ee ku aadan kiiskan uu eedeysanaha ka yahay Said Cali Macalin Daa'uud qal saarkaysaan dabcan dadku aad u fara badan yihiin soo dhawow saaxiib magacaaga ugu bilow universal ku soo dhawow maanta sidoo ay taabal kiiskan iyo go'aanka la filayo in maxkamaddu ay ka gaarto mahadsan tahay maanta xaqiiqatan waa maalinkii ugu dambeysay kiiskan loo madlan yahay in mataqaanaa Luul Cabdicasiis ay cadaalad hesho waxaan rajaynaynaa in maanta mataqaanaa Luul cadaalad ay hesho ninkaas la waafajiyo wixii diinta islaamka ay ka qabtay haddii ay dhacdo ninkan in mataqaanaa maanta la sii daayo waxaa ka dhalanaya fasaad ilaahay aayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay wallahu laa yuhibbu alfasaad ilaahay aayadiisa quraanka wuxuu ku leeyahay watacaawanu cala albirri wattaqwa isku garabsiiyo wanaagga oo xumaanta isku garabsiinina marka ayadan waxaan arkaynaa in mataqaanaa dad mataqaanaa xumaantii ninkaas iyo dulmigii iyo jariimadii foosha xumeed ee gabadhaas u geystay dad in ay ku garab siiyaan isku dayayo mataqaanaa aan isleeyahay cuqaashi iyo reerkii waaye oo u soo istaagayo mataqaanaa marka u soo laabano arrinta xukunka maxkamadda maanta bal rajada laga qabo xukunka maxkamadda intuu leeyahay shuhadaa'ullaahi yacni haddii ay noqon lahayd markhaatiyaashii ay noqon lahayd isagaba laf afkiisa wuxuu ka qirtay oo ah mataqaanaa in mataqaanaa gabadha ku gubay guriga uu yiri mataqaanaa waan baxay shidaalkii waan soo gatay gurigii dabkii baan mataqaanaa qabadsiiyey marka ma umaleynaayo markhaatiyaal iyo wax kaloo loo baahan yahay kiiskan uu dhammaystiran yahay xaakimka waxaan ka rajaynaynaa in markaa ninkan uu ku rido xukun dil ah rajada marka laga qabo in kiiskan go'aanka maxkamadda maanta ay gaarayso uu soo afjaro kiisaska la mid ah xaqiiqatan waxaan isleeyahay waxaa bilowdayba mataqaanaa fasaadkaas oo ah sidii ninkan dilku u geystay gabar kale la marjiyey gabaraa ninkeedii ceejisay gabar kale torrey lagu dilay marka waxyaabahaas oo dhan mataqaanaa waxaan isleeyahay waxa ugu wacanba kiiskan oo haddii mataqaanaa mar hore mataqaanaa waaxda cadaaladda ay dadejin lahayd ninkan mataqaanaa kiiskiisa in mataqaanaa dhibaatadan dhan ayna dhicin marka waxaan rajaynayaa maalinkii ugu dambeysay inay noqoto oo mataqaanaa Luul Cabdicasiis ay hesho cadaalad waxaan ku baaqayaa waan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed ee mataqaanaa daawanayso waxaan ugu baaqayaa in mataqaanaa cadaaladda ay u heliyaan mataqaanaa ilaahay aayadiisa quraanka ah wuxuu ku leeyahay walaa tarkanuu ila alladhiina dalamuu fatamassakum an-naar wama lakum min duuni illaahi min awliyaa thumma laa tunsaruun oo macnaheedu yahay isku garbasiinina xumaanta oo si aydan ugu naar taginaha marka waxaan rajaynayaa aan mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed inay rajaynaysaa in mataqaanaa Luul Cabdicasiis ay cadaalad hesho daawadayaal sadarkaysaan weli waxaan ku dhex jirnaa hoolka dacwadda ee maxkamadda gobolka Banaadir halkan oo la filayo in goordhow maxkamaddu ay soo saarto go'aan ku aadan kiiska uu eedeysanaha ka yahay Said Cali Macalin Daa'uud gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaana la filayaa in goordhow soo galayo hoolkii ayaa dabcan buuxsamay dadkii ugu badnaa ayaana ka soo qayb galay sadarkaysaan kuwaas oo daneynaya inay
goobjoog ka aadaan kiiska maxkamadda iyo qaabka maanta halkan uu uga qabsoomayo waxaana markaasi la filayaa in xukunkan maxkamadda uu noqdo go'aankii ugu dambeeyey ee kiiskan iyadoo horay uu soo maray ilaa iyo dhowr dhegaysi gaar ahaan 2 dhegaysi ayuu soo maray kiiskan dhegaysiga koowaad waxaa dabcan la doonayay in halkaasi markaa dadkan ay ka soo qayb galaan kiiskan go'aankana maanta kama dambaysta ah lagu gaarayo sida horaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir uu ka sheegay fadhigii maxkamadda kan ka horreeyey waxa maanta la sugayo inkastoo wax walba ay go'aanka maxkamadda ay ku xiran yihiin ayaa ah in maxkamaddu ay soo saari doonto go'aan kama dambaysta oo kiiskan ay ku soo afjarayso sida qorshuhu yahay haddii aysan isbedelin fadhigii kan ka horreeyey kadib gudoomiyaha maxkamadda ayaa horey u sheegay in kiiskan uu yahay kii ugu dambeeyey dhegaysigiisa markaa uu noqon doono isla markaana qaybtan ay noqon doonto qaybtii go'aanka kama dambaysta ee maxkamaddu ay go'aanka ku gaari lahayd dabcan saa arkaysaan hoolka maxkamadda ayaa buuxa dadku qaarkood ciriiriga jira waxaad ka dareemaysaa sida dabcan dadku aysan weli kuraas ay ku fariistaan aysan u helin maadaama dadkii ugu badnaa loo ogolaaday maanta in kiiskan goobjoog ay ka aadaan oo labada dhinac ah si markaa intaa qudheedu ay qayb uga noqoto si ay goobjoog uga noqdaan kiiskan maxkamadda gobolka banaadir maanta la filayo in go'aanka kama dambaysta ay soo saarto ehelada labada dhinac dadweyne iyo dad kale ayaa dabcan ku soo qulqulaya hoolka maxkamadda kuwaas oo rajadooda ugu weyn ay tahay in kiiskan uu ku soo dhammaado si cadaalada waxaana ay ku baaqayaan in kiiskan uu cadaalad u dhaco maadaama sida ay sheegeen uu yahay kiis in badan oo bulshada Soomaaliyeed ah ay aad dhegta iyo ishaba ugu wada hayaan qaabka maxkamadda gobolka banaadir ay u maareyso goordhow ayaa maxkamadda ay laaban doontaa maxkamadda gobolka banaadir uu soo gali doonaa gudoomiyaha maxkamadda uu soo galana haddii ay xukun tahay horay ayaa dabcan looga dhawaaqayaa xukunkaas waxaana markaasi sidoo kale la filayaa in kiiskan go'aankii ugu dambeeyey ee maxkamadda gobolka banaadir uu ka soo saaro dabcan hoolkii ayaa weli buuxa dad fara badan ayaana doonaya in ay ka soo qayb galaan وهجاي تلفزيون يونيفرسال ayaa daawadayaal toos noogala soconaysaan inagoo markaa hadba idin la socodsiin doona kiiska maxkamadda iyo halka markaasi uu marayo yahay weli telefishinka universal ayaa daawadayaal toos inagala socotaan maxkamadda gobolka banaadir ayaana ka soo hadlaynaa tawintan tooska ah dabcan waxa ay markaa ku saabsan tahay qaabka ama go'aanka la filayo in maxkamaddu ay soo saarto go'aankiisa kama dambaysta ah wagaag dadweynihii ugu badnaa ayaa dabcan hoolka jooga kiiskana waa gabagabadii sida maxkamaddu hore maanta ay u sheegtay horaan gaar ahaan fadhigii ka horreeyey waxaan la kulmi doonaa qaar ka mida dadka halkan u yimid dabcan xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa hadda soo galay xubnaha ka socda oo iyaguna qayb ka ah xafiiska xeerlaaliyaha xubnaha ka socda dabcan hadda ayay hoolka maxkamadda soo galeen waxaana la filayaa in goordhow dabcan fadhigu bilowdo marba haddii xeer ilaalintii iyo xubnihii kale markaa xafiisyadu ay yimaadaan
dabcan saa arkaysaan daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa howlka dacwadaha ee maxkamadda iyadoo markaa dadkii ugu badnaana ay ka soo qayb galayaan daawadayaal dabcan saad arkaysaan weli howlka maxkamadda gobolka banaadir ayaan ku jirnaa gudahiisa goordhow ayaa la filayaa in go'aanka maxkamadda uu soo baxo soo dhow baab university ku soo dhowow iga waran maanta bal xukunka iyo rajada la qabo waa sida bismillaahi raxmaani raxiim horta magacaygu waa suldaan nuur xaaji waa suldaanka luul rajada aan qabna aad u weyn tahay waayo annaga weligeen waxaan ku kalsoonaan jirnay sharciga haddana waxaan sharciga ka rajaynaynaa maxkamaddaba cadaaladaan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay waayahay kiiskan dhowr dhegeysi ayuu soo maray maantana waa gabagabadii iyo kii ugu dambeeyey ee fadhiga maxkamaddu ay go'aan ku gaarayso rajada ehelka luul ay qabaan intay la eg tahay wallaahi aaday u weyn tahay rajada ay luul qabaan waayo ninkan khiraal waaye waxaan rajaynaynaa in cadaaladda uu mari doono hadduu ilaahay rajada luul iyo ehelkeeda rajadooda aaday u fiican tahay waayahay marka xukunka maxkamadda kadib maxaa xigi doona marka ay isleedahay gabadhii aaskeeda iyo hawsheedii maxaa faahfaahina oo aan naga siin kartaa weli farinjeer bay ku jirtaa luul sax waaye farinjeerkay ku jirtaa luul waa la aasi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay farinjeer ku sii jirto sax ma ahan go'aanka lagu aasi doonana waa soo baxayaa mar dhow waxaan rajaynaynaa go'aanka kadib maxkamadda hadday ku dhawaaqdo in luul la aaso sida ugu dhaqsiyaha badan waayahay muxuu yahay go'aanka maxkamadda laga filayo ee luul lagu aasay marka annaga mar walba maxkamadda waxaan ka filnaynaa cadaalad waxaan rajaynaynaa in oo maxay ahayto sida ay ummadda oo dhan ay wada sugayaan inay maxkamadda ku dhawaaqi doonto hadduu ilaahay ugu dambayn marka baaqaaga bulshada Soomaaliyeed iyo dadkii kiiskan la socday aad la wadaagayso fariinta aad dirayso maxay tahay maadaama aad tahay nabadoonka guud ee wallaahi fariinta aan dirayo waxa waaye horta dhibkan waa dhacay inuusan dib dambe u dhicin oo Soomaali aysan dhibkan oo kale mar dambe uga dhicin aan baaq ugu dirayaa dilka socda ee isdaba joogga ahna in la joojiyaan Soomaaliya baaq ugu dirayaa mar walbana cadaaladda ayaa la rabaa in ay shaqayso hadday cadaalad shaqayso waxaan oo dhan way istaagayaan marka in cadaalad la helo ayaa muhiim ah si waxaan dilkan iyo dhibkan u istaago cadaalad haddii la helo wax walba ku hoos jiro nolol ku hoos jirto barwaaqo ku hoos jirto horumar iyo barwaaqo ku hoos jira cadaalad waayahay aad ma santahay waa ku mahad celinayaa soo dhawo baaba adigana waayahay ayay soo dhawo waayahay aad baad ma santiin dabcan weli howlka maxkamadda ayaan ku guda jirnaa waxa uu ahaa nabadoonka Allah naxariisto luul cabdilcasiis oo dabcan saad arkayseen inooga warramayay waqtiga la-aasta iyo luul isagoo dabcan saa maqlayseen sheegay in aasitaanka luul iyo kiiskan ama go'aanka maxkamaddu ay soo saarayso uu yahay kiisas markaa dabcan isku xiran sida uu sheegay weli howlka maxkamadda ayaan ku guda jirnaa daawadayaal telefishinka universal toos ayaad nooga daawanaysaan innagoo markaa hadba idinla socodsiin doona halka kiiskan iyo dabcan hawshiisa uu ku dhammaado goordhow guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa dabcan la filayaa in howlka soo galo si markaa xukunka kama dambaysta ah uu ugu dhawaaqo howlka saad arkaysaan waa u wada buuxaa dhammaan ehelada labada dhinac ayaa jooga kuwaas oo doonaya in ay qayb ka noqdaan kiiska Allah naxariisto luul cabdilcasiis go'aanka maxkamadda gobolka banaadir maanta ay ka soo saarayso iyadoona dhinaca kale la filayo in guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir uu soo saaro go'aan kama dambaysa oo ku aadan kiiska luul cabdilcasiis howlkii ayaa dabcan hadda saad arkaysaan buux dhaafay dadkii ugu badnaa
ayaana dabcan jooga sawirka waxaa idiin muuqanaya hadda eedeysanaya Sayd Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan in uu xaaskiisa gubay oo maxkamadda horay loo keenay waxaana la filayaa goordhow Sayd Cali in kiiska uu ku eedeysan yahay go'aan rasmi ah maxkamadda gobolka Banaadir ay ka soo gaarto dabcan Sayd Cali waa markiisii saddexaad kiiskan isagoo ku eedeysan maxkamadda gobolka Banaadir uu ka soo hor muuqanayo waxaana markaa fadhiga ka horeeyay maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in kiiskan eedeysan Sayd Cali Macalin Daa'uud gabagabadiisa uu yahay kii go'aanka looga gaari lahaa wayahay goordhow ayaa la filayaa in hoolka maxkamadda uu soo galo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir wayahay daawadayaal saad arkaysaan waxaa la filayaa in dabcan aabaha Luul Cabdilcaziz ayaa hadda yimid Cabdilcaziz oo ah aabaha dhalay Luul kaas oo markaa doonaya in halkan qayb uga noqdo wayahay aabaha Luul Cabdilcaziz ayaa dabcan jooga oo ah عدالة كفلنا إن شاء الله عدالة أنا قدرت مسلمنا نهاي مسلمين تاني مركز إن شاء الله كتاب حكومة كتاب قاس عدالة فلنا إن شاء الله إن شاء الله عدالة فلنا عدالة أنا فاش أنا فاش أوكي رئيس تعال وين بسم الله الرحمن الرحيم ما دام محكمة عدالة فلنا إن شاء الله عدالة اللي حكم فلنا إن شاء الله قوان كان فيلنا عدالة فيلنا محكمة سيك صوصعت إلى هذا المسلك الناس راحنا جعلنا لا هذا سبب له دوق لا يا لول عبد العزيز وحال له دوق له صاحب كذا السوق شنو صاحب كذا له دوق هتعرف شيء حكمك كدب كورميل الدوق يا مخيري وحال له دوق إن شاء الله عندك قوان كقاري إن شاء الله أباها لول عبد العزيز أيو طبعا أها صاد أركيسان عبد العزيز أو محكمة أي هذا يعني أما هولك محكمة هذا صقلي وهي محكمة أي طبعا هذا بلا مرة مقلنا بليز عايز مقلنا ولا عايز مقلنا هذا أسكري إماده بناك إدي صارها إيدينا عايز مقلنا وهي قبدي يا طبعا الوجراء وقتي ولا تاجي عايز مقلنا بليز نول بشيء كذا قدوميها يا جور وسوق لي طبعا وحنا مركز على فيليا وهي أباها لول عبد العزيز أي طبعا كاميرته هذا قبنيسا إسقوا مركز أركيسان كيس كان أباها لول عبد العزيز أي طبعا ديار سلمانتا إسقوا آد قدنين أي كيس كان وبصور ما لسه أنت اللي سق مي
وهجاج طبعا صار كيسان بلول عبد العزيز أي طبعا كاميرا قبنيسا لنا كلنا وحي قبنيسا سنة سيد علي معلن داود أو اسمه كو سن كيسكن تلفزيون كيونيفرسال توس أياد طبعا وقد ضاونيسان هدو بقدره كيسكن يهلكا مركا وكل ما هذا إننا مركا يدين سو قد من دون هذا هلكا أي مريسو كيسكن سنة كيس العالم معلن داود وياي وياي قدومية محكمة قبل كبنادر هي الوقت هو الجوال تذكر ورياش وضد أحلى كبحة أخيار تلك وربانيتا صوفي سنة أخيار حكامي ميس أمر محكمة السوق سبيل عن الموضوع بلاتو يا مرعى الربانيتا نقول لعلمي نقول كستماشات الربان ويقول الواقع دحل دور مرة قبل على قدر تيم كوربين دحل على قدر الدنيا أخيار محكمة الجمهور الشرعي أو العلوم أخيار دحل على قدر قفت السكيس عند لها يستاجر كلية وريل وما بعنا والعلوم بايا كامل ما قفت السكيس تساقي استاجر وياي جوردو يا طبعا لفليا إن كيس كان قدومي محكمة أسوقله يضع مركا سنة سيد علي معلن داود سنة كوسوجن هولكا إهلكا لبضل إنع يا سيدو كلا طبعا يجونا جوجا فنيجا محكمة أو ديار واحد قيد كمقام توص يا طبعا بلول عبد العزيز يقبديس أي طبعا حدا هلكن أي كاميرا قبنيسا أو وضع أركيسان وهجاك توصل يا داوديال تلفزيون يونيفرسال جلس عتان كيسكن يهلك ما أنت طبعا قرشوا يهاي إنه ومتى كل مرة وياي قدومية محكمة أي طبعا جورو سوق ليه قدومية محكمة يا طبعا سوق لي جوردو قدومية محكمة يا طبعا هذا سوق لي داوديال سالة سعوتان ألف بدي سوق لي نول بوشيشي كذا قدومية يا طبعا جوردو سوق لي هذا وهي جورلو يا طبعا وياي جوردو قدوميها يا طبعا سوق ليا أو الله فيليا إن سوق له قدوميها محكمة قبل كبنادر يا طبعا هذا سوق لي قدوميها يا طبعا هذا سوق لي بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك الصومالية مقع ددوينها الصوماليات محكمة قبل كبنادر قيبت عقاب تلانت تشيغا ما أنت أي تاريخ دو تاليح دبشي سدحاد لما كون أفري لباتنكا محكمة قبل كبنادر لانت هذا تشيغا
waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 147/2024 kaasoo eedeysana ka yahay Sayid Cali Macalin Daawud ina Bilsan Xirsi Cusmaan 24 jir ah ku dhasha Xamar Digandar Keenley kuna xiran xarunta dambi baarista CID kuna eedeysan qodobada 434 lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 440 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koobaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed lana xiray 5tii bishii 2024 maxkamadda gobolka Banaadir markay aragtay in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud uu maxkamadda ka hor cadeeyay in asiga iyo marxuumadu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in asiga oo careysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gubanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in eedeysanuhu qorsheeyay sameynta faldambiyeedka markay aragtay in eedeysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo joodari iyo armaajeer taasoo cadeynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo cadeynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedeysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedeysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacadaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedeysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyay hadalkii marxuumadda ay ku dhahdo oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tambadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ku weysa faldambiyeedka ku xusan qodobka 440 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dambiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha 3aad 2024 wabillahi tawfiiq ودي
كاميرونك بنان كلا بحر كاميرونك بنان كلا جاي sidee u aragtaa xukunka maanta maxkamaddu ay ritay ما شاء الله وحي أن عدالة كسوقين نواية أول بنا عدالة كسولين وحنا دريمينا إن سوماليا عدالة هش kiiskan maxkamaddu ay soo gabagabaysay dil toogashaa lagu xukumay Sayd Cali sida maxkamaddu ay sheegtay sidee u aragtaan ilahaan see u dareemaysaa والله وعدالتي محيطه لول عدالة دواية إن كيسك ونقصلاس أيوة أيوة ما صدقنا بدوني سدوا وهي سيد وارك تحكم والله وكفر أحسن ما دام لقوا حكم دلتو بشاء فهمت وأنا سجين إن لقوا حكم دلتو بشاء فهمت وكفر أحسن أنت وجسنا على كاميرا تسوي جسم سيد وارك إنسان مرحومك إلا توكتو وكفر أحسن وأنا سجين وح أفضلنا ما أنت جامعة أو صوتك نبهات إن حكم كيس أدق يسرو وأنا كفر أحسن ما أنت محكمة هذا وما تسنتين وهاجاك داوديال ولي تلفزيون يونيفرسال ayaa toos noogala socotaan howlka maxkamadda gobolka banaadir ee joognaa soo dhawow cabdiqaadir maanta iyo xukunku waa dhacay soo waragtaa alxamdulillah dabcan waxa ka dareemi kartaa howlka iyo shucuurtiisa noqotay xukunkuna dabcan dhagta lagu wada taagay qof kasta ma maleysan karin daqiiqada ka hor ama saacada ka hor waxa imaan doona laakiin hadda xukunku waa lagu fuliyay waa lagu dhawaaqay waxaana lagu xukumay til toogasho ah waana rajaynaa hadduu leeyahay si cadaalada inay ku dhamaato sanuun dabcan cadaalada u baahan cadaalada waxay in laga oofiyo xadka waa rajayn in laga oofiyo fulinteedana waa dhimanta hadduu leeyahay waxaan rajayn in la sharciya loo fulidana hadduu leeyahay dabcan Soomaaliya dhan waa ku ganacsan aad ma sida hukuumad xilliya haddana qareenka ayaa dabcan hadlaya oo u doodayay eedeysanaha Sayd Cali Macalin Daawud قرن علي حلنا سدو هاي صباح قال انت زكي hadda maanta way ay awgaata cali xalane أنا شوف بسرعة هنا نطلع بحث يلا أنا شوف بسرعة هنا نطلع بحث maanta waxaa soo baxay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir qodob ahaa laba sina waxaa ka furan raacfaan ma aynaan filaynin in xukunka uu soo baxo clientigeenna uu ku dhaco sidaas darteed maxkamadda waxay soo saartay laba xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya raacfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelannay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya raacfaan qaadashada xukunka asaga ahna raacfaan aan ka qaadannay waa mahadsantihiin وهاجاك داوديال طبعا صادر كيسان هولك محكمة أيان كسر حلنا محكمة قبل كبنادرنا حكمكي طبعا وحيصو صارتي قوانك قدام بي يدو دلتو غشا مركا كو حكمتي سنة وهاجاك داوديال تلفزيون يونيفرسال ayaa toos nogala socotaan intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo tabintii tooska ahayd ee idinkaga imaanaysay hoolka maxkamadda gobolka Banaadir
taas oo ku aadaneyd dhegaysiga iyo go'aanka gaaridda kiiska eedeysanaya Sayid Cali Macalin Daawud oo maxkamaddu maanta halkan ay ku soo gabagabaysay Maxamed Iille Cabdiraxmaan Arka Khalid Maka Xaaji Banaadir injineer Nuurow iyo sidoo kale saaxiibkeen Guuleed Qaari oo dhinaca farsamada inoo joogaba dhammaanteen waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo inta live ama tabin toos oo noocan oo kale aan ku kulmino iyadoona dadka dib nagala soo qabsaday haddii aan markaa akhbaarta ugu dambeysay ama xukunka aan la socodsiino maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dil toogasho ku riday Sayid Cali Macalin Daawud oo isagu ku eedeysnaa kiiska ahaa gubidda iyo dilka xaaskiisa Maxamed Iille Universal TV maxkamadda gobolka Banaadir